Idea Tikager oo u naqday boqortooyada teknolojiyadda waa tahay haddii aad nagu cusub tahay nagu toobtee halkan waxaan kaga hadalnaa dhacdooyinka caalamka iyo shirkadaha caalamka si aan sheekadan aan u gudagalno waa inaan u tarkiinaa aan dib ugu laabanno sanadihii 1938 waxaa dhacday violent show wuxuu sameeyey waxaana ka mid ahaa magaca Zamzam afka Kooriyaada Waqooyi waxay ugu dhigan tahay saddexdii saddeed wuxuu lahaa hal aragti oo iyo dhibaatooyin dhaqaale oo soo wadahay Kooriyaada Waqooyi in badan waxaa dhacday in ay sanaan waxay Zamzam iyadoo kuujan isla markiiba ay bilaaratay ganacsiga inay ku libatay waxayna ii weydiisay dhinaca dharka caymiska dhismaha Zamzam ma soo saarto alaabada elektarooniga oo kaliya dhowr fiil iyo kalaado tallaabo kasta waxay ahayd dabayaaqadii 1960 Zamzam waxay qaadatay inay go'aansatay inay beddesho taariikhda waxay gashay warshadaha dhinaca elektarooniga waxay bilowday samaynta telefishinada elektarooniga kuwaas ay ku noqdeen wiilashii bisha ee maanta waxay wajahday tartan adag marka la eego shirkadaha ka dadweynay Zamzam waxay si joogto ah u maalgelisay cilmi-baarista hal-abuurka markay noqdeen Zamzam waxay soo saartay taxanaheedii galak waxayna si xooggan ay u tartantay dhinaca suuqa astaanta loogu yaqaano kubadaha waddan kasta maanta aragto ama qaadato model Zamzam ah waxaa laga yaabaa inaad aragto kaliya teknolojiyadda laakiin kaasoo dhabaxantii waxaad arkaysaa sheekadii aad baratay taasoo kusoo bilaabatay qarniyo kahor taasoo haddana ku socoto waxaan ka baran karnaa dulqaadka tamarta joogtaynta haddii aad ka heshay sheekadan ha iloogan inaad muuqaalka like saarto